ugu horeyn waxaan jeclaynaa halkan uga mahadnaqo mas'uuliyiinta kala duwan ee gobolka Maroodijeex oo ugu horeeyo maayirka caasimadda Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko iyo golihiisa deegaanka barasaabka gobolka Maroodijeex iyo dhammaan maamulka gobolka Maroodijeex guud ahaan sida quruxda badan ee ay sii sagootiyeen aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxaan igana uga mahadnaqayaa dhammaan ciyaartooydii soo martay gobolka Maroodijeex ee aan isku waqtiga ahayn saddexdii xilli aan u ciyaarnay oo dhammaantood iyaguna si kal iyo laaba ciyaartan u soo abaabulay ugana soo qayb galay suna soo xilqaamay aad iyo aad baan igana uga mahadnaqayaa sida saaxiibtinimada iyo walaaltinimada leh ee ay sii sagootiyeen sidoo kale isagana waxaan si gaar ah uga mahadnaqayaa saaxiibkay Cabdikariin Guji oo isagu xubin weyn oo gobolka Maroodijeex ah sidaas oo kalena ah ninka ciyaartan dadaalka ugu badan ku bixiyay aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxaan iyagana aanan iloobayn marnaba inaan u mahadnaqo taageerayaashii gobolka Maroodijeex ee sida hagar la'aanta noo soo taageerayay muddadii aan u ciyaaraynay gobolka Maroodijeex aan matalaynay waxaan leeyahay dhammaantood aad iyo aad baad u mahadsantiin qulubtayda kama bixi doontaan waxaadna noqon doontaan kuwa aan xasuusto inta ka dhiman waayahayga nolosha halkan maanta waxa weeyaan Hargeysa Stadium waxaanu joognaa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ciyaartaasoo aad u macno badan oo halkaynu ka doonaynay gaadhaan ciyaaruhu maraysa waa ciyaar lagu sii sagootiyo ciyaartooy hore u ciyaari jiray imkan u ciyaari jiray dowladda hoose maxamed khadar oo ciyaartooy aad iyo aad qaali inoogu ahaa maxamed khadar waxaa qabanay xagga Ingiriiska insha Allah mustaqbal wanaagsan min xaggan uga rajaynaynaa xagga hadduu tago waxaan filaynaa inuu sportska xagga hore ka galo waanu ku soo bixi doonaa insha Allah waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciyaartooydan kale ee saaxiibkood sii sagootiya ee gobolka Gabileyna ka yimi gobolka Maroodijeexna iska soo urursaday ciyaarta saaxiibtinimo ay ku sii sagootiyaan saaxiibkood waa sida ciyaaruhu ahaan jireen waa sida baad sportsku ahaan jirtay in marlabaad halka ku soo noqono aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad waan u salaamiyo aad waan ugu soo ducaynayaa inuu noqdo haliyay xagga ka soo baxa marka hore waxaan salaamayaa dhammaan haweynta sportska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland marka xiga waxaan aad iyo aad waxa weeye salaan labaad oo boqodna u dirayaa dhammaan waxa weeye shacbinaha garoonka stadium Hargeysa ka soo qayb galay ee munaasabadda xafladda la sagootinta ciyaartooygii caanka ahaa ee waxa weeye lagu sagootinayo ciyaartooygaas oo ahaa waxa weeye kabtanka dowladda hoose ahna waxa weeye xulkii ku guuleystay labada jeer gobolka ciyaaraha gobolka Maroodijeex xulkii ku guuleystay labada jeer isla markaasna waxa weeye ciyaartan oo ciyaar sagootisa asxaabadii u qabteen waxa aad aragtaan waxa jira laacibiin fara badan baa joogta waxa joogta hal doorkii waxa weeye kubadda cagta intooda badan ilaahdo Somaliland waxa weeye mid aad u garanaysaan waxaan laacibka ku sagootinayna insha Allah farxad wanaagsan ciyaar aad u qiimo badan TV-gan website-kan malcabna waxa weeye aad baan isaga waxaan baleenayaa waxaan xaflad qiimo leh ugu qabanay Hargeysa Stadium Maxamed Khadar Oday oo xagga iyo qurbaha u socdaalaya waan saaxiibkayo waan sii dhaweynaynaa insha Allah hadii Ilaahay raahdo maadaama uu qurbaha tagayo Maxamed Khadar Oday wuxuu ahaa nin qiimo leh oo asxaabteedii dhalinyarteedii maadaama uu qurbaha tagayna waxaanu niriyaan idinka tagin maxamed idinkoon xaflad qiimo leh u qaban maadaama xafladana dhalinyarta soo qaban qaabisay aad baan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan ay u soo diyaariyeen labada gobol ee haddeer wada ciyaaraya Maroodijeex iyo Gabiley ciyaartaasi waxaanu ku soo sabootinaynaa maxamed hadduu Ilaahay yiraahdo ciyaartaasina waxay noqon doontaa insha Allah ciyaar aad loo wada sugayay bay ahayd maadaama maxamed uu qurbaha tagayay maxamedna waxaanu leenahay saaxiib waad meel ka sirsan noo sii tagtay insha Allah sportskana inaad wax nagala qabato oo nala garab joogsato insha Allah halku maanta taagayahayna waad ogtahay qiimaha ay ku lahayd gobolka Maroodijeexna waad ogtahay insha Allah inaanad sidaa kaga maqnaan aad wax la soo qabato ayaan rajaynaynaa saaxiib waan ku soo ducaynaynaa inuu Ilaahay meel khayr leh ku geeyo maanta waxaan joognaa munaasabadii kabtan Maxamed Khadar Axmed Kabare oo ahaa kabtankii dowladda hoose una safar dibadda u baxaya dalka Ingiriiska waxaan leeyahay waan ku xiisi doonaa in badan wuxuu ahaa ciyaartooy mugiyo miisaan ku leh wadanka iyo kooxaha caasimadda iyo haday noqoto gobolka Maroodijeexba iyo xulka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Khadar Axmed Kabare intaan ka aqaano waa shakhsi aad u qiimo badan oo kubadiisuna aad u fiican tahay oo akhlaaq iyo kubad bay Ilaahay isugu daray waxaanu
ka mid ahayn ciyaartoydii safarka dheer wada galay waxaanu ahayn ciyaartoydii waqtiga ugu fiican kubadda intaan ku jirnay marxaladdii ugu fiicnayd aan wada qaadanay maxamed khadar axmed kabadhe waddanka abkhaasiya xulka qaranka jamhuuriyadda somaliland anagoo matalayno funaanadiisa xidhan oon u wada baxnay dalka abkhaasiya maxamed khadar axmed kabadhe runtii halkan kagama soo koobi karo wanaagiisa iyo kubaddiisa waa shakhsi ay dadkuba makhraati ka yihiin kubaddiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dadnimadiisaba waxaan leeyahay ilaahay safar khayr qabaha kaaga dhigo safarkaa waan kuu ducaynaa waa lagu xiisi doonaa insha allah waana lagu tabi doonaa anigoo magacaygu yahay cabdiweli maxamed ismaaciil kana mid ah ciyaartooyda gobolka Maroodijeex waxaan maanta halkan ku soo watiinaa gobol ahaan ciyaartooy qiimeeya qaaye kule xulka gobolka Maroodijeex maxamed khadar oday u taqaantaan oo gobolku maanta ciyaar saaxiibtinimo ugu ciyaaray garoonka weyn Hargeysa Stadium gobolka Maroodijeex iyo gobolka Gabiley ciyaartooygaasna soo watiinaa waan u ducaynaynaa in Ilaahay nabad qab geeyo aad baan u tabi doonaa gobol ahaan iyo sports ahaanba wuxuu ka mid ahaa ciyaartooyda ugu weyn caasimadda wuxuu ka mid ahaa rugcadaayada xulka gobolka Maroodijeex saddexdii koob u dambeeyay ama labadii koob u dambeeyay la qaaday ilaa haatan wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda gobolka aad baan ugu faraxsanahay maanta ciyaartiisii sabotinta intaan u ciyaarno waanan tabi doonaa gobol ahaan iyo sports ahaanba وبالله توفيق waxaynu joognaa suguntintii maxamed khadar axmed kabadhe kabtanka dawladda hoose caasimadda Hargeysa iyo gobolka Maroodijeex maxamed khadar waan muddo badan saaxiib soo ahayn ilaa 2011 iyo in ka sii horeysaba waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii ambiitanka ahayn wada matalaynay 2011 maxamed khadar waa qof shakhsiyadiisu aad u wanaagsan tahay waa qof dahaba waa dadka farkutiriska ee dadweynaha lagu arko maxamed khadar waa qof daacada oo qof markaad sheeko wadaag leedihiin aad ku xiiso gelinaya waxaan leenahay maxamed khadar kulli toolo dhamaantii oo ku tabi doonaa shakhsi ahaantii saaxiib waxaan leeyahay aad baan ku tabi doonaa oran maaya bay bay saaxiib laakiin insha Allah kulan dambe xiiso leh inaynu wada qaadnay ilaahay ka rajeynaya hamigaagana ilaahay ku rumeeyo insha Allah waxaan ku leeyahay saaxiib safar salaama anigoo ah maxamed xasan maxamed gabi ayaa ah kabtanka gobolka Maroodijeex halkan waxaanu sagootin ugu qabanay aad sagootinta xafladda balaaran ee arkaysaan laacibkeygii marna ah kabtankeygii maxamed khadar oday oo dawladda hoose ka tagayay marna gobolka Maroodijeex aan kabtan u ahaa oo ciyaartay qaali nagu ahaa waxaan leeyahay ilaahay jidka ku fudaydiyo waan hambalyeynaya waxaan leeyahay nagama tagin waad noo maqan tahay aad iyo aadna waad u mahadsan tahay intaad nala soo qabatay iyo xusuustaadu nagama tagi doonto marna nala joogtaa waxaanu halkan ka soo gutaynaa saaxiibkayo maxamed khadar axmed kabadhe oo ahaa kabtankayga dawladda hoose ee kooxda caasimadda maxamed khadar oo maanta sagootiisa aan halkan ku sameynayno oo ay u sameynayaan labadii heer gobol ee gobolka Maroodijeex iyo gobolka Gabiley alxamdulillah walaalkeen inta iyo in ka badan ba uu nagu leeyahay waxaanu markaa aan halkan laga soo koobi karin xafladda sagootintiisa anigu ka kooxda caasimad ahaan anoo ka mid ah ciyaartooy isku koox yihiin kooxda dawladda hoose oo uu ahaa waqti badan kabtanka kooxdayada waxaan aad iyo aad halkan uga salaamaya saaxiibkay oday maxamed khadar oo leeyahay saaxiib Allah ku nabad geliyo waana lagu tabi doonaa waxaan sidaynu ognahay uu maxamed khadar ka mid yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan ee Soomaaliland soo maray oo in oran karno maanta de waxa weeyaan laf dhabartii dawladda hoose ayuu haan oran karno marka positionkiisa nin aan la tabinay nin maaha marka maxamed khadar waxaan u leenahay saaxiib oo ku sooteeyna ilaahay kula garab galo saaxiib aad baan ku salaameynaa waxaan ku suganahay Hargeysa Stadium munaasabad qaaliya oo nu qaban doono kabtankayga dawladda hoose ahna ciyaartay gobolka Maroodijeex ahaa runtii maxamed axmed kabadhe aniga 2013 markii ugu horeysay isku tiim noqonay 2013 ilaa up to now oo maanta yaani naga safrayana isku tiim anagoo ayaan waayahay ciyaaradu ku soo gabagabeeyay farxad iyo sharaf weyn way ii ahayd inaan ka soo garab ciyaaro maxamed runtii wuxuu ahaa shakhsi qaaliya oo yaani ixtiraam badan noole si gaarana waliba aniga aan ugu hayo waayo walaalkay weyn buu ahaa kaliya ciyaartooy ma ahayn waxaan leeyahay meel kasta oo tagto ilaahay kuma tuso wax ku dhiba cisiya sharaf iyo karaamana waan ku haynaa maanta waxaanu joognaa munaasabad lagu sagootinayo ciyaartooy qaali ku ahaa gobolka iyo degmadaba runtii waa maxamed khadar oo ahaa haddii aanu faalayno nin ku wanaagsan xagga akhlaaqda asluubta ciyaarta kubadda dhammaan intii qof looga baahnaaba
ku wanaagsan ayuu runtii ahaa waxaanu ilaahay ka baryaynaa in muraadkiisa oosan uu u sahlo is arag dambe oo xiiso leh iyo kulan intan ka dambeeyana aanu yeelano haddii la qadaro noloshiisa inta ka dhimadna uu caafimaad iyo cimri dheer uu ku sugo intaasan ayaan odhan lahaa munaasabadan maanta aanu taaganay runtii waxa galabta runtii dhici doonta ciyaartan qiimaha iyo qaayaha badan ee ay dhaxmari doonto labada gobol ee Maroodi Jeex iyo Gabiley oo lagu sagootinayo Maxamed Khadar oo runtii ah ciyaaryahan akhlaaq badan oo sharaf leh oo tusaale badan u noqon doona Soomaaliland runtii waxa weyn nin role model oo da'du maanta ku jiro oo ah role model Maxamed Khadar waxaan anigu ku xasuustaa wuxuu ahaa xulkii Soomaaliland mathalay tartankii Abqaasiya isaga iyo saddex ciyaaryahan oo kale oo ka tagay dalka Soomaaliland oo ku soo ciyaaray Abqaasiya waa laba xul oo aad iyo aad igu taariikh aniga ahaan Cabdi ahaan labadaba u ciyaariyay Maroodi Jeexna la soo ciyaariyay Gabiley la soo ciyaariyay maantana aad baan ugu faraxsanahay in kasta oo iska hor imanay labadeeda kooxood aan Gabiley maanta u ciyaariyo ciyaarta munaasabadeeda aan ku soo lagu soo casuumay Maxamed Khadar oo ciyaaryahan ka tirsanaa Maroodi Jeex Maxamed Khadar oo loo yaqaan Kabare Oday oo ciyaarta munaasabada loo qabtay oo sabootin ah ciyaartan waxaan isaga xusuus gaar u leedahay anigana sharaf iyo karaamo iyo ciisig iyo nagu ah maadaama uu isku keenay laba gobol oo inta mid kala maqnaa aad iyo aad bay u maasantahay Maxamed Khadar u maasan yahay sidaan quruxda badan leh maanta loo soo abaabulay loo soo sameeyay u timi saxaafadaha faraha badan leh Home Cable TV malcab maxay birsho aad iyo aad bay ugu fiican yihiin maadaama sportska aad iyo dheergeliyaan alxamdulilah rabbil caalamiin maanta waxa weeyaan inaan sharaf iyo karaamo iyo ciisig kula qaadano dadkaygana daawanaya bulshadayda oo aad u jecel sportska waxaan aad iyo aad u jeclan lahaa in maadaama ahay hadda macallin aan ahay awalna ciyaartooy ahaa in la dhiirigeliyo ciyaaraha oo dadka bulshadooda dadka aragtaa in sida u daawanayaan in wasaaradda ciyaaruhu ay horumariso ciyaarihii oo wax la qabto oo xitaa motivation loo sameeyo aad iyo aadna waxaan maanta u mahadnaqayaa ciyaartan quruxda badan ninka laga tagay walaalkeena inuu Ilaahay nabadgeeyo iyo toobarashan kala duwan ee isku yimid maanta aad iyo aad baan iyagana u salaamayaa saxaafadda kala duwan aad baan u salaamayaa dhamaantiin aad iyo aad baan u salaamayaa insha Allah munaasabadan maanta aan ku ciyaarno Hargeysa Stadium labada gobol ee gobolka Gabiley iyo gobolka Maroodi Jeex oo maanta xafladda aan u dhigano Maxamed Khadar Axmed Kabadhe oo saaxiibkaynu sii maca salaameynayno isagoo dhoofaya insha Allah waxaan u baryaynaa Ilaahay safar fiican oo khayr qaba inuu ka siiyo inkastoo labada gobol wala ciyaarayaan waa gobolkii Gabiley iyo gobolkii Maroodi Jeex haddii ka soo noqoto munaasabadda ciyaar fiican baa socota insha Allah gobolka Gabiley ayaan guulayaan u rajeynayaa haddii Ilaahay raahdo inagoo caafimaad qabna Ilaahay naga saaro insha Allah billahi kariim maanta waxaan ku suganahay garoonka Hargeysa Stadium oo aanu ka soo qayb galnay xafladda sagootinta ee Maxamed Axmed Kabare Maxamed Khadar kabtankii dawladda hoose caasimadda runtii Maxamed Khadar muddo badan baanu ku soo jirnay garoomada haday tahay heer degmo oo caasimadda iyo kulli gobolka Maroodi Jeexba runtii Maxamed Khadar waa nin caasimadda iyo bahda sports way tabi doonaan insha Allah taala isagana kulli waxaan rajeynaynaa khayr badan kulli Maxamed Khadar nin mar walba dhalinyarta hormoodu haayo mar walba garab taagnaa baa isagoo kubadda ciyaaraya iyo kulli guubaabe iyo dhiirigelinba kulli Maxamed Khadar maanta uu naga tagayun laakiin mid qulubteeda kulli ku jira uu noqon doonaa oo hadduu qurbaha joogana kulli mid wax soo tari doona ayuu lafteeda hanaya kulli Maxamed Khadar waxaan rajeynaynaa khayr badan sida daadarkiisa maanta garoonka waxa ka soo qayb galay ciyaartooyda hore ee gobolka ciyaartooyda waaweyned iyo dhammaan bulshada ciyaaraha dhan marka hadda inaan taas ku soo koobaya Maxamed Khadar khayr badan u rajeynaa insha Allah halkan maanta waa ciyaar sagootin ah oo lagu sagootinayo ciyaartooygii weynaaye Maxamed Khadar ee u ciyaar jiray xulka gobolka Maroodi Jeex marka ciyaartan xulkii Maroodi Jeex iyo xulka Gabiley oo runtii ciyaar qurux badan ah ayaan maanta halkan ku haynaa oo waxaad moodaa in ciyaartooygii waaweynaaye khibradda lahaa inuu maalinba mid uu ka tagayo kubadda cagta ciyaartooygii aadka u qiimaha badnaa marka Maxamed Khadarna wuxuu ka mid ahaa ragga waxaan ku kubadda qiimaha ku lahaa marka hore Ilaahay baa mahadle kulankan isku keenay Hargeysa Stadium anagoo matalana ciyaartooydii gobolka Maroodi Jeex ee 12 qaaday ciyaartooydii ka dambeeyay
ee gobolka Maroodijeex iyo gobolka Gabiley ciyaartooyga hadda iyo kuwa horeba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cid kastoo ciyaarta soo abaabushay anagoo sagootinana Maxamed Khadar Oday oo munaasabadan loo dhigay isaga dartii oo maanta magaalada ka baxaya oo u socdaalay dalka halka iyo qurbaha waxa la ilaahay safarka qaba kaaga dhigo dhulkuna taaka ilaahay kaaga dhigo qof wanaagsan oo sports waxa kabtanka kooxda dawladda hoose waxa ciyaartooyga gobolka Maroodijeexna waxa runtii waa ciyaartooyo kooda ugu fiican dalka ayuu haay soo mara runtii waan subateena waxa maanta halkan ka dhacday ciyaar qurux badan anigoo in muddo aan garoonka Hargeysa Stadium ku ciyaarin maanta nimid ciyaartooyo badan oo kooxdeeda ciidanka Booliiska aan ka hornimid runtii waxay noo hayd sharaf iyo bogaadin badan waxaan aad ugu hambalyeeyaa cid kastoo ciyaarta soo abaabushay oo ugu horeeyo malcab TV-na waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin yaa Axmed Taye Qaran runtii waxaad sportska dalka waxaad tihiin dadka hormoodka waa ee mar walba dhiirigeliya ee mar walba garab taagan aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan maanta joognaa garoonka Stadium Hargeysa waxaan xuseynaa ninkii Maxamed Khadar horta taariikhdiisa ma soo koobi karo haddaan odaah yar ka yiraahdo Maxamed Khadar horta magaciisa waa odaya sidaas uu oday u yahay Maxamed Khadar waa nin mas'uul oo kubadda cagta in badan ku soo dhex jiray waxaan u soo ciyaaray gobolka Maroodijeex dhowrkii sano u dambeeyay laba koobna uu la qaaday Maxamed Khadar waxaan ku xasuusan doonaa waxyaabo fara badan oo de saaxiibtinimadii iyo wanaagii aan soo wada qaadanay kulay Maxamed Khadar ma oran karayno bye bye waxaan leenahay ilaahay noo ka soo nabad celiyo insha Allah meesha tagaysana de ilaahay ku nabad geeyo ayaan leeyahay Maxamed Khadar waxaan maanta ciyaarta gootino qabanay kabtankii kooxda dawladda hoose kana tirsanaa gobolka Maroodijeex Maxamed Khadar Axmed Kabare oo aan leenahay runtii saaxiib waxa tahay la tabi doono in badan xiisa fara badan oo ku qaadi doona booska aad ugu banaysay maanta waa mid la tabi doono insha Allah bismillaahir kariim ka oran maayo waa markii suu ka dambeysay laakiin waxaan jecelahay mar labaad iyo mar saddexaad in afraad dib u kulanno inagoo ciyaartooy ah marka hore waxaan mahadcelinayaa dhammaan labada xul ee gobolka Maroodijeex iyo gobolka Gabiley anoo kabtanka xulka gobolka Gabiley iyo kabtanka xigeenka ciidanka booliska waxaan aad ugu mahadcelinayaa maanta anagoo macallimiinteeda ka hor nimid macallin Diri Dhaba macallin Jamaal waxaan kaloo mahadcelinayaa anagoo isku dambeysay 2013 labadan gobol markaas soo final isku aanay ciyaar saaxiibtinimo maxay ahayd in kooda ciyaarno maxaa Khadarna waxaan leeyahay safe trip waa nin sportska in badan ku soo dhex jiray waa nin aad loo qadarin og yahay maanta si fiican ma soo aabunay waxaan halkan doonaynaa inaan kaga hadalno sagootinta Maxamed Khadar Axmed Kabare oo kamid ahaa ciyaartoydii kooxda kubadda cagta dawladda hoose Hargeysa ee gobolka Maroodijeex maanta dalka dibadiisa oo baxaya Maxamed Khadar waxa ciyaartooyga farakutiirska ee akhlaaqda kubadda hogaaminta iyo kartida intaba u dhashay waxa weeyaan ciyaartooyda noocan oo kale markay ka baxaan dalka waxa weeyaan in munaasabado noocan oo kale lagu xuso aad iyo aad buu uga mudan yahay intan iyo in ka weyn in loo qabto la maamuuso la xuso waxa weeyaan kubaddu itagas bay leedahay waa ciyaaryahanada akhlaaqda iyo kubadda wanaagsan ciyaari jiray ee la tabi doono insha Allah bismillaahir kariim waxaan u rajeynayaa safar khayr qaba inuu ilaahay nabad geliyo kubadda iyo kooxdayda dawladda hoose Hargeysa iyo gobolka intaba wuxuu ka mid ku lahaa kaalin muhiim ah waxa weeyaan qayb libaax loo ka soo qaatay muddadii dhowrka sanaan kaaga ciyaaray waxa xubin firfircoon oo naaran karayo wuxuu ka baxay bahda sportiga bismillaahir rahmaanir rahiim maanta garoonka Hargeysa Stadium waxa ka socota tar ciyaar lagu talagalay sabootinta walaalkeen Maxamed Khadar Oday oo la sabootiyay waxa weeye ay ku ciyaarayaan maanta labada gobol ee kala gobolka Maroodijeex iyo gobolka Gabiley waxa weeye waxaan leenahay walaalka Ilaahay ku nabad geliyo